كان يقول أركبه وحيري عن جعلان لها إرمانت إن كاميرا هل لها هذا كاميرا هل لها وذا يعلم هذا بنفكر كذا أرسل لها هبين دمان وصعدا صومالي channel ومع كاميرا وذا ويدير ورني وحنا أنا ونكاس مجاهد كاس صعدنا هاي الرصاص كم قاطو أقالة كم قاطو شيلن كم قاطو إن كاميرا يتولز كاس الرصاص بيوباهين marka taasna waxaan ka wadaa dhinac walba in la isaga tago gabar aan ku soo gabagabeynay final pointiga 2010 March baa waxa la baangareeyay wadankan waxa ka dhacay 3 wiil oo Ingiriis ah dhimatay 3da wiil oo Ingiriiska waxay cuneen darooga la yiraahdo methadone ama miyaw suuqa looga yaqaan methadone ama miyawda waxa laga sameeyaa qaadka وقعت كيو البروسيس كريه أو كيميكال لغو داري أو كنيني لغا ديغن ميديا دي إنجليز كردن باوالتي وريرني أنغونا وارنا وكاكرب قادرني مانتي نوغو دودا نير إسلام channel كان أتاقني كوا ليرادو إسلامي كونسل أف بريتن بان أتاقني وحان نير إلما دا ريالو مياو ميشي مرتو قاد همرا هنغير ريبينيني حقا لغا لابتي مياو دي 3 بلود قدود بالغو بانغري Alan Johnson ninkii la oran jiray xataa processki iyadoon la marin advisory council of misuse of drugs iyo talab badan iyadoon la fiirin bal ay moosadda wiil cadaan ku dhimatay waa baan qaadki maxaa dhacaan maxaana loo reebay salinow this is qaadku miyawdu waa new drogo oo suuqa soo galaysa qaadku badan buu ku yeeshay marketka si kale in loo takal gareeyo mooyee ma qabta in la siiyo xal ma noqonayso lawyer baan u tagnay waxaan ku niri bitman silitars niman lawyer badan baan u email gareynaa hal lawyer baan ugu soo noqday 2005 kii baa waxa jirtay marka advice home office waa markii u horeysay oo intay investigation dheer sameeyeen ay go'aan ka gaareen qaadka go'aankaas wuxuu ku base gareysnaa haddaad gashid waad aqoonsan kartaa final pointigiisa ugu dambeeya waxay ahayd we are aware growing concerns of qaadka ummadda uu ku hayo laakiin at the moment ma aha wax spreading to wider society ma aha small part of communities umbu affect garaya for that reason we will monitor in our resource iyo siino oo aan si kale uga warqabno mooyee ma baan garanayn waxay tiri gabadha lawyer-da markaas ay idinku dhaweey macnaha go'aan in lagu gaaro warbahalka yaa cuna waa khalad bay tiri go'aanka waxa ay inuu ku base gareysnaado evidence-ga medical iyo social harm-ka available ka iminkana go'aan walbo soo baxa oo challenge garan kartaan bay tiri simply the law is in your side bay tiri cathanin iyo cathanon iyo haddana methadone saddexda qaadka ugu dhex jiraba oo loo cunaba waa baan any go'aan oo ay dawladdu gaarto we are willing to challenge like you need to come up with resources inshallah taasna kolay TV-yada iyo culimada iyo cid walba la kaashan doonaa waan u diyaar garoobi doonaa waxaana aaminsanahay in arintaasi gidigan xil naga saaran yahay dhalinyaradana waxaan ku oranayaa nawqaad saga carraacday real assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay شيخ واحد سينك بعد إن شاء الله. السلام عليكم. أخ عوالي بارك الله فيك رنتي وبرنامج وجهد آد أفر بدن ولكن كبحيي وهي هيت علماء يدرس أهل العلم إني ما رأيت مرة رأي كبحيان لكن رنتي وحو إنشيت كريي برنامج ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ضد بنتي نولينتد ويؤاد معرفة وتلقلي يعني سوشيالي يو ميديكال يو وحول بديبات ذا إلى ذهنا آدي آد وهضلي وحا قاد وركيس سوكو ويأبشر بعض ويري وحا قاموس كعايكيال قادوا أذيقالي مركا markii diiniyan la eegana diintan culimadu waxay yiraahdeen waxa jira wax la yiraahdo kulliyat al-khamsa shan shay oo la ilaaliyo waxa weeye waa nafti waa maalki waa cirdiga iyo sharafti waa diinti waa aqligi shantiiba uu baabiinay maalki ayuu la dagaalamayaa walkii had soo noo sheegay wuxuu la dagaalamayaa qofka sharafteedii qof sharaf leh وما ركتي ما أهن
asluub iyo isaanka wixii karaamadii lagu yaqaanay ilaalinaya maaragtay maahan diintii ayuu baabi'inaya oo qof qaad dukada salaadna ma xifdinayo maaragtay waajibaadkii kale oo la midka ahayna ka sii daran dhimirkii iyo maskaxdii iyo garaadkii ayuu maaragtay baabi'inaya waxa weeye qofku waxa uu ku socdaa nasasho iyo waxa laga yaabaa qaarkood inaysan habeenno soo jeedaan marka maskaxdii bay qaraxdo sidaas oo kale marka intii maaragtay ay noloshii iyo diintu inay ilaalisay ahayd oo dhan ayuu maaragtay uu baabi'iyey marka in arrintaas maaragtay campaignkaas walaalka lala qabto oo hormuud cid walba kaalinta ka qaadan karta ay ka qaadato oo maaragtay mujtamaceena la badbaadiyo yani waad arkaysiin hadda waxa aan loo baangaraynin waxa weeye dad gooniyaha ku baaba'ay marka cid keer siinaysa lama arko laakiin kii kaloo labada wiil u dhimatay waa la baangareeyey marka kan laakiin maaragtay boqolaal iyo kumanaan ayuu naga qabaa inta maaragtay xaasas iyo maaragtay reer isku seegay inta carruur u baylahowday inta caafimaad darro iyo maaragtay cudurro iyo dhibaatooyin dad la soo kulmeen yani disasters fara badan ayaa maaragtay ayuu keenay weliba intaa waxaa sii dheer gudaha waddankana isagaa ka hadlay laakiin anigu waxaan ogahay dadka murderska ama dadka laaya ama dhibaatooyinka sameeya waa dad bahalkan inta ku daroogoobay laga yaabo $5 oo ku qayilayo inuu u dilo qof dhakhtar ah qof caalim ah qof muhiim shacabka u ah ama ummadda u ah aad iyo aad qiimo u leh qof kale leanna ninkan maskaxdiisu ma joogto bahalkaas uu dictate ku yahay inuu gaaro unbaa maaragtay ka marka waxa weeye dadka muhiimka dadka laye waa dadka qaadka cuna oo qaadka kaliya la siiyo wax kalaba lama siiyo yani waxa mahmaayooyinkii ka jiray xagga waxa kamid ah maaragtay midba wuxuu yiri walla caawa ama wuxuu yiri marqaamay ama martini meel ka aalay ama wuxuu yiri meyd ahaaday waa saddexdaas ama inaan marqaamo inta wax soo dilo wax soo dhaco ama aan dhaawac ku noqdo martini meel ka aalay ama wuxuu yiri anaan meyd ahaaday saddexdaas marka waa saddex joyso saddexduba ay maaragtay yeedhsaasan marka waa arrimo aad iyo aad marka arrintaas runtii waa arrin mudan in aad iyo aad looga qayb qaato oo lagula dadaalo maaragtay walaal campaignka uu wado weliba macluumaadka maaragtay waa macluumaad aad muhiim ah qofkii istifsaaraad weydiinayana waad weydiin kartaan anigu intaan baan dari lahaa bismillah middan regulation of qaad in bahalka kartoon la geliyo waa proposal waa early days qolaa soo wadata inay naga xoog bataan oo weliba iyaga attentionkooda la siiyo baan annagu macnaha baan ka shakisanahay kartoonkaas marka la geliyo sidii sigaarkii oo kale korka looga qoro qaadku waa dilaa qaadku waxaasu keenaa qof qaad cunayo oo dhibaato badan oo wejigiisii in lagu sawiro meesha in looga qoro korka under 18 lagama gadi karo in quality control waxa la dhaho la sameeyo oo dawladda Kenya lagu amro baasha la yiraahdo DDT oo ay qaadka ku buufiyaan marka la beerayo in laga joojiyo ama laga yareeyo waxa ugu weyn oo quality controlka loo sameeyo waa baashaas marka taas ma aha mid UK sameynayso ama halkan lagu sameeyo regulation of qaadka hadii uu orderkaasi la impose gareeyo qaadkii oo aan saas ahayn kama soo deegi karo hidro waxay noqonaysaa first and foremost horta gawiisa in la joojiyo marka sidii minicapkii oo kale la dhaho qofkii doonaya inuu arrintan ka shaqeysto laysan ha apply gareysto markuu apply gareysto qolada soo diraysa quality control terms and conditions kaas waa inuu qaadku fit gareeyaa waa inuu leeyahay DDT-daas isku buufsanayn waa inuu kartoon saas ku jira appearance-giis waa inay saas tahay miisaankiis waa inuu inta yahay waa in wixii oo dhan clear message iyo dib iyo dheef wuxuu leeyahay waa inay banaanka ugu qoran yihiin dheef uma leeyahay inuu leeyahay marka xagga laga soo sameynaya su'aashaadii labaad xasuus bettingka and petitionka waa very good question iyo waxaan anagu ku encourage garaynaa adultiga ilaa up to 16 inaan hatta secondary schoolka dadka wada carruurta dhigata way ka qayb qaadan karaan laakiin ilmaha as under age ma kuma encourage garayn karno inay macnaha fikri iyo opinion ka dhigtaan tan aan haddaan wax yar ku daro tan sunti yareeda idin taabtay
masaajidka Dar es Salaam baan ku soo bandhignay oo asaga laftigiisii baa noogu yimidba nin la yiraahdo Dr. John Cokery oo St. John's wuxuu joogaa St. George's Hospital ninkaas shaqadiisu waxay tahay wuxuu monitor gareeyaa satan death wax la dhaho waddankan UK qof gaarigi dilay la garay qof accident kala ku dhintay la garay qof xanuun hayn jiro ama liver ama TB ama balay la garay iyagu malafkiisii waa galay ma yaqaanaan qof 40 jira oo dhintay suu u socday question baa la isweydiinaya what's causing hadday laba noqdaan kaba daran hadday shan noqdaan oo ay shantooda ama hal magaalo ka yimaadeen ama ay shantooduba Wales yihiin ama Liverpool yihiin kaba daran su'aal baa la isweydiinaya ninkaas wuxuu yiri aniga Soomaali u hulli iga ahayn baa waxaan arkay buu yiri 4 case oo niman ah oo dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo satan deedkaas ku dhacday mid asagoo petrol station asagoo taagan oo baabuur ku shubanayo dhacay mid asagoo lugeynaya buu inta dhacay war maxaa ku dhacay mid gurigiisa fadhiga asagoo dhex fadhiyo dhaco dhintay waa la isweydiiyay buu yiri waxa la yiri observation lagu sameeyay waxa ay la dhinimanayaan baliisan anaga soo gaarsiinay ninkii wuxuu soo saaray report please waa idin baryayaa booqda qaad related deaths baa la yiraahdaa qaad oo KHAT ah related deaths reportka ku soo baxay case walba soo dhacay meeshuu ka dhacay ilaa iyo hadda waxay marayaan 16 qof waa from that day baan attention kayga siiyay buu yiri inaan arooriyo waxaan ogaaday yiri marka dadkani geographically isku meel kama imaan ma deganam UK cunto common ay wada cunaan ma jirto DNA ka wada dhaxeeyo qaraabayiin ma jirto one thing baa gadigood ka dhaxaysa one thing kaasna waa qaad gadigood extreme qaad use bay ahay marka taas waxaan ugu dareeyay suntaas lagu buufinayo ma ahayn biyo asaga waxa keenay qaadka laftiisa ee waxa beerka dadkan ka cunay waa suntaas lagu buufiyo qaadka oo dhibaato weyn dhimashada ku haysa جزاه الله خير أخونا عبد القادر عوالة كلمة ساس قيمها بدن يتلذا رنتي آد كقيمة بدن رنتي أنا باهن ما أركتي إن لقبر ركسنا هذا وحي قعل لقى سين كرنا قعل لقى سين إن شاء الله